muftiga boqortooyada wadanka Sacuudiga Cabdilcasiis Al Sheekh ayaa fadwooday in heesaha qaar iyo muusigu ay banaan yihiin. Dhanka kale Sacuudiga ayaa 70 sano kadib ogolaaday in diyaaradaha u socda magaalada Tel Aviv ay dul maraan wadankaasi Sacuudiga. Cabdirasaaq Jubba ayaa warbixin arrinka ku aadan eegaya. dhacdo noqonaysa tii ugu horeysay taariikhda tan iyo markii la asaasay Israel. Shirkadda diyaaradaha Hindiya ee Air India waxa ay duulimaad Delhi ilaa Tel Aviv si toos ah ugu dulmartay hawada boqortooyada Saudi Arabia. Wargeyska Sharqul Awsat ayaa ku waramay in shirkadda Air India ay tahay shirkadda kaliya ee uu Sacuudigu ruqsadda u siiyay in duulimaadyada ku socda ama ka imanaya Israel ay ka gudbi karaan hawada boqortooyada Saudi Arabia markii ugu horeysay. barta Flight Trader 24 oo u gaar ah dhaqdhaqaaqa diyaaradaha madaniga ayaa xaqiijiyay duulimaadka tursigiisu ahaa AI 139 oo ka yimid magaalada New Delhi ee xarunta dalka India kuna socday magaalada Tel Aviv ay duulimaadkii ganacsi ee ku socday Israel ee ugu horeeyay muddo 70 sano ah ku dulhaaday boqortooyada Saudi Arabia. Mas'uuliyiinta India iyo kuwa kaleba waxay ku tilmaameen arrintan dhacdo taariikhi ah isu soo dhawaansho ka dhici doona bariga dhexe. An Air India flight come from India to Israel, and so it's a wonderful occasion, and I hope this will add to the amazing relationship that we are building with Israel already. An historical moment. First time that Air India landing in Israel, and first time that the skies soddonkii Maarso 2017 hogaamiyaasha Carbeed ayaa bayaankooda ay ka soo saareen shirkii madaxda jaamacadda Carabta ee lagu qabtay dalka Urdun. Waxay ku sheegeen inay xiriir la furi doonaan Israel haddii ay ka baxdo dhulka Carbeed ee ay haysato tan iyo sanadii 1967. Shardigaas ayaa lagu xiray in ay Israel ka soo baxdo haddii ay doonayso in ay dunida muslimka iyo Carabta ay xiriir la yeelato. taasina ma aha mid dhacday maanta ama saansaanteedii ay muuqato. dhinaca kalena muftiga guud isla markaana ah gudoomiyaha golaha sare ee fadwada boqortooyada Saudi Arabia Cabdilcasiis Al Sheekh ayaa dhageysiga muusiga iyo heesaha jaaska loo yaqaano waxa uu muftigu sheegay in cadaymihii ama daliilihii horey loogu hayay ee xarantimeynayay muusigada iyo jaaskuba ay ahaayeen kuwa daciif ah sida awgeedna uu muusiga jaasku aanu xaraan noqonaynin. wuxuuna intaas ku daray in munaasabadaha lagu qabanayo muusiga aan lagu sheegi karin macsiyo iyo kulamo hawaraac ah. waxaase xiise gaar yeelatay markii Cabdilcasiis Al Sheekh muftiga Saudi Arabia uu ka hadlayay sababta uu heesaha jaaska oo kaliya u baneeyay. ayuu sheegay in qofka muslimka ah ee carabka ah aanu fahmayn sida awgeedna aanay xaraan noqonayn, iyadoo la ogyahay inay jiraan dadyow badan oo muslimiin ah oo aan carab ahayn si fiicanna u fahmaya. That clings to me, how the thought of you does things to me. muftigu wuxuu intaasi ku daray in fatwooyinkiisii hore ee xaaraanta ku sheegay muusiga ay yihiin kuwa ku dhisnaa xujooyin iyo axaadiis aan lagu kalsoonayn in Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaadee laga soo wariyay. culimada dunida muslimka ayaan weli ka hadlin arrintan. waxaa xusid mudan in boqortooyada Saudi Arabia ay isu diyaarinayso toddobaadyada soo socda martigelinta bandhigga muusiga jaaska oo muddo 3 maalmood ka socon doona Saudi Arabia. Saudi Arabia muddooyinkii ugu dambeeyay waxay qaadanaysay tallaabooyin aan laga filanayn marna. tallaabooyinkaas iyo afkaarahaasi waa kuwa uu ka dambeeyay dhaxal sugaha Saudi Arabia Mohammed bin Salman. wuxuuna sheegay inuu diyaarinayo Saudi Arabia oo la jaan qaadi karta dunida casriga ee maanta.
toddobaadkii hore wuxuu sheegay in xijaabka haweenku aanu waajib ku ahayn balse uu yahay mid dooq ku xiran oo haddii ay gabadhu rabto ay xiran karto haddii aanay rabinna ay ka tegi karto sida ay qoreen qaar ka mid ah jaraa'idka ka soo baxa bariga dhexe waana mid ka mid ah isbedelada aan laga filayn Sacuudi Arabia. Cabdirasaaq Jubba, RTN TV, Garowe.